halkani waa dugsiga qadiimiga ah ee Togdheer maaha dugsi cusub oo ay dhistay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland balse dhalinyaro waaye hore ka aflaxay dugsigani oo maskax iyo maalba isku kaashaday ayaa dayactir ballaaran ku sameeyay dugsigani xubno guddi ah oo isku xilqaamay dayactirka iyo soo nooleynta bilicda iyo taariikhdii uu lahaa dugsigani ayaa gaarsiiyay horumarka iminka ka muuqda dugsigani Togdheer oo ay ka aflaxeen madaxweynayaal Somaliland soo maray siyaasiyiin caan ka ah deegaanada Soomaalida iyo mas'uuliyiin iminka xilal kala duwan ka haya dalka agaasimaha guud ee waxbarashada Somaliland Axmed Abukar ayaa gaaray saaka dugsigaasi oo ay dayactir ballaaran ku sameeyeen dhalinyaro guddi ah kuwaasi oo gacan ka helaya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer munaasabad kooban oo lagu furayay wajiga koobaad ee dayactirka dugsiga Togdheer ayaa ka qabsoontay librariga cusub ee loo dhisay dugsigani Togdheer ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco guddida dugsiga Togdheer mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka iyo heer qaran iyo dadweyne tiro badan ugu horeynba waxa faahfaahiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dayactirka dugsigani Khadar Cabdi Cali oo ku hadlayay afka guddida dayactirka ku sameysay dugsigani Togdheer iyo sidoo kale maamulaha dugsigaasi ugu horeyn dayactirka iskuulka lagu sameeyay waxa weeyaan 22 galaas ayaa la dayactiray 22 galaas waxa laga dayactiray waxa weeyaan dhamaantood sagxadda waa la qaaday oo sagxad cusub la dhigay dhamaantood galaasyadaas 6 uu keligii markii hore gudoomiyaha wasaaradda waxbarashadu ka bedelay mooyee intii kale albaabada waa laga bedelay 22 105 daaqadood oo iskuulku leeyahay ayaa wax maxay toolay dib loo dayactiro iyo waxyaga dib loo hagaajiyo wax laga qabtay sidoo kale dugsiga waxa lagu sameeyay dhamaantiin dib loo muuradeeyo loo rijiyo intiisana dhamaanteen dib maxay toolay loo rijiyo inta waxa dheeraa oo ku soo darsamay in librarigan aynu ku jirno oo runtii maxay toolay bixiyay qaaraankeeda iyo lacagtii lagu dhisay nin reer Burca oo hadda Ingiriiska jooga oo la Dr. Cabdilaahi Awdiiriye Cabdi lacag 10 kun ayuu soo diray librariga intii lagu dhisay mooyee intii kale yana dayactirkii kale iskuulka ayaa lagu sii daray marka guud ahaan hawsha dugsiga laga qabtay waxa weeyaan in 22 galaas la dayactiray in librariga cusub loo dhisay in geedka madaxweynuhu bixiyayna aad aragtaan hadda ku yaala meesha adduunka kama dhamaato maxay baahi iyo wax badan intaasoo guula waan gaadhay waxa haddana naga dhiman agaasimaha leeyahay agaasimaha guud ee goobta fadhiya madaxda kale goobta fadhiya laba ayaa noogu daran oo loogu xanuun badan oo kaar nagu haya oo waxa aan qabanay laga burburinayo oo dayac ka dhigaya hadday taasi dhacdana waa laga dhigan jabayaa maayirkii hore ee magaalada Burco xildhibaan Maxamuud Dhagalaab maayir ku-xigeenka degmada Burco xildhibaan Rashiid Faarax Cali iyo guddoonka waxbarashada gobolka Togdheer aqoon-yahan Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa bogaadiyay tallaabada ku dayashada mudan ee qaadeen ardaydaasi hore uga baxday dugsiga Togdheer ee dawladda anigu dhalay ardaydii iskuulka wax ka baratay baan ku jiray muhiim weyn buu ii yahay maanta anigoo madaxdii degmada ka mid ah inaan maanta ka qayb qaato dib u dhiskiisii iyo xafladda furitaankeedii maanta lagu dayactiray waana arrintii taariikhda cid kastoo soo martay waqti fara badan oo adag baynu soo marnay oo kala duwan duruufo badan awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii badhna waanu rarnay badhkii kalena sida xoogayuu sheegay degdeg baanu uga ranaynaa insha allahu tacaala burcana waan idiin sheegayaa maadaama ay taariikha leedahay iskuulka raggii ka soo baxay ee laga sheekeynayey waxa weeye iskuul taariikhi ah waxaanu tiragaraynaa sidii dhul wacan loogu iibin lahaa ardayda iyo dadkan dadweynahana loo kala dhex saari lahaa dadweynahana waxaan u sheegayaa waan idin ixtiraamnay inaanna idin burburin idinkuna insha Allah bismillaahi kariimta guddi soo sameysaan la shaqeeya dowladda hoose iyo gobolkaba marka iskuulkan waa taariikhi in la ilaaliyo waa waajib wasaaradda dhijigu nagala joogaana ha qaato librariga iyo bugaagtiisa iyo furniture-kiisa dowladda hoosena ha qaato rarkeeda dadka degan guddida dhalinyarada ah ee ka kooban ardaydii ka baxday dugsiga oo aan karo waxay muunad iyo model ama ku dayasho u yihiin dhammaan bulshooyinka Somaliland hawsha maanta ballaaran ee aynu halkaa u fadhino tacab badan geliyay wax kasta oo la soo bixiyay iyo cid kasta oo wax bixisayna cidda ay ku soo hagaajisay ama macnaha ay maanta yeelatay cidda u yeeshay waa dhalinyarada runtii aan la ilaawi karin iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kaloo halkan uga mahad celinayaa Dr. Cabdilaahi Awdiiriye oo runtii geesinimo muujiyay
dhankiisana barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa bogaadiyay tallaabada ay qaadeen ardaydaasi hore uga baxday dugsiga dawladda ee Togdheer. waxaan kale u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada iyadana heer gobol iyo heer qaranba iyaduna mar walba garab taagan iskuulka Togdheer wax badan runtii ka qabatay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga xilqaamayaasha ee ardada ka baxday dugsiga hoose dhexe Togdheer cid kastoo ka qayb qaadatayna mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinaynaa. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Axmed Abukar ayaa dhankiisa bogaadiyay tallaabada ay qaadeen ardaydaasi hore uga baxday dugsiga Togdheer ee dayactirkani ballaaran ku sameeyay dugsigoodii isagoona agaasimuhu halkaasi ka ballan qaaday kaalinta ka wasaarad ahaan ay ka qaadan doonaan horumarka dugsiga Togdheer. inta badan goobaha wax lagu barto iyo deegaankii ganacsiga runtii isma dhex galaan waxbarashadu waxay u baahan markaa in waxbarasho qura ay ka socoto aan cidi dhex deganaanin inaan cidi ku ganacsanin arrimahaasna runtii shuruucda dalka way ka soo horjeedaa anagu wasaaradda waxbarashada haddaan runtii qof kasta wax ku darsado goobaha waxbarashada mahad ballaaran iyo waxaan u haynaa markaa bogaadin waxaan u mahadnaqaynaa markaa ardaydii halkan ka baxday ee iskuulkan markaa dayactir ku samaysay isagoo anaguna waxaan ugu mahadnaqaynaa markaa in librariga magaciisa markaa lagu magac daro. gabagabadiina xubnaha guddida dayactirka dugsiga Togdheer ayaa shahaado sharafyo kala duwan ku maamuusay qaar ka mid ah shirkadihii kala qayb qaatay dayactirka dugsiga muddadii ay wadeen. dhankoodana maamulka dugsiga ayaa shahaado sharaf ku maamuusay guddida dayactirka ku samaysay dugsiga Togdheer oo ah ardaydii hore uga baxday dugsiga. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Somaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha waxbarashada ayaa si wada jir ah xadhiga uga jaray library cusub oo loo dhisay dugsiga Togdheer iyo sidoo kale fasallo ay dayactir ballaaran ay ku sameeyeen ardaydii hore uga baxday dugsiga dawladda ee Togdheer. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burco. waar saaxiib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkadii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland tayo waa Telesom